الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadaha qiimihii badan kusoo dhawaaw abekatij. maanta muuqaalkeena waxaan uga hadli doonaa codsiyo badan igu soo laalaabtay, asxaab badan iga codsatay sida Facebook professional mode-ka sida loo soo saaro haddii uusan ku soo saarnayn adiga uu ka maqan yahay. how to show optionskaas sida loo soo saari lahaa ayaan isla arki doonaa. muuqaalkani waxaan ku faahfaahin doonaa qaabka loo soo saari lahaa professional mode-ka insha Allah binilaal kariim. waxaan isla mari doonaa two methods ama laba qaabood hadduu alla yiraahdo. labadaas qaaboodna waan idin wadaagi doonaa. fadlan intaan muuqaalkan gudagelin waxaan ka codsan lahaa channelka inaad rukumatid oo subscribe aad saartid, sidaas lamid ah asxaabtaadana aad la sii wadaagtid. sidaas lamid ahne muuqaalka inuu laygareynta iyo subscribe-taba waa inay isla socdaan. waxaan jecelnahay inaan channelkan update badan oo ku sameyno, waxyaalo badan oo kusoo kordhina insha Allah. yaanan hadal kugu daalinin, muuqaalka faahfaahsan isla bilaabno insha Allah. sida halkan kaaga muuqato Facebook profile-kaaga markaad soo kicisid waxaad tegi doontaa 3.3 lens-ka markaad tagtid waxaa ku dhufan doontaa profile name-kaaga. markaad ku dhufatid waxaad tegi doontaa 3 dots-kaas markaad tagtid waxaa ujeedaa qaybtan oo dhan professional mode kama muuqdo oo professional mode uu ka maqan yahay. waa ka laaban doonaa oo markaasaan uga laabto waxaa sameyn doonaa Google Play Store ayaan tagi doonaa. waa methodka koowaad. Google Play Store markaad tago Facebook ayaa ku qori doonaa. Facebook-gaaga hadduu update ku yahay waa okay, hadduusan update ku ahayn waa inaad update gareysaa. ana hadda update uu yahay optionka koowaad open deh. methodka labaad ayaan isla gali doonaa. methodka labaad waxaa sameyn doontaa 3 dots-kaas ayaa tagi doontaa. 3 dots markaad tagtid waxaa sameyn doontaa profile-ka ku dhufo kadibni 3 saddexdaas dhibcood ayaa ku dhufan doontaa. saddexda dhibic markaa ku dhufatid qaybtan hoose ee kaaga muuqan tahay copy linkiga ayaa soo koobiyin doontaa insha Allah. copy ayaa dhihi doonaa link to profile copied waa soo copy gareeyay. kadib waxaa sameyn doonaa waa ku dhufan doonaa profile-ka saddexda dhibic ayaa ku laaban doonaa. qaybtana ujeedid ayaa waxaan ka qaadan doonaa screenshot. okay qaybtan ayaa screenshot ka qaatay sida halkan kaaga muuqato. screenshot ii qaaday waa dib u laaban doonaa. dib markaa u laabto anigoo inta aan joogo bartaan joogo ayaa waxaa ku xulan doonaa helping and support ayaa ku dhufan doonaa. helping and support markaa ku dhufto sida horey aan ku sheegay waxaa ku dhufan doontaa report a problem markaa ku dhufatid sida halkan kaaga muuqato continue report a problem qaybtaas hoose ayaa kusii dul dhufan doontaa. markaa sida ugu dhufatid waxaa sameyn doontaa horey markaa report gudbinayna waxaa isticmaali jirnay including report a problem. maanta kaas ma isticmaali doono, waxaa isticmaali doonaa waxaa doono do not include the report. markaa sidan ugu dhufto hoos ayaan u socon doonaa ilaa qayb ay ku qoran tahay profile. qaybtan ay kaaga soo qabanayso profile-ka ayaa ku dhufan doonaa. profile-ka markaa ku dhufto waxaa sameyn doonaa image-ka aan qaaday. okay image-ka aan soo geliyay midkan iga saar. marka halkan waxaa soo gelin doonaa linkiga oo profile-ka aan soo koobiyay. okay inta tag linkiga profile aan soo koobiyay ku dhufo. markaa sidan ugu dhufatid waxaa sameyn doontaa hoos ayaa u wadi doontaa. qaybtan sare ayaa waxaan kusoo koobiyeysan doonaa qoraal aan soo diyaariyay insha Allah. qoraalkaasni waxaan kula soo wadaagi doonaa. commentiga ayaa beenka ugu qaban doonaa. haddaa commenti ka waasina description-ka ayaad ka heli doontaa insha Allah. sida halkan kaaga muuqato waa soo koobiyay gareey qoraalkan waa kina. marka qaybtan ayaa rabaa linkiga thank you qaybta hoose inaad marsiisto. linkigan ayaa maaragtay meesha saxda ay geenayaa. okay wuu ii taagan yahay. kadib hoos ayaa u bixi doonaa. meeshan ayaa waxaan ku qori doonaa thank you mahadsanidin ayaan dhihi doonaa. kadibna ugu dambeyn
waxaa sameyn doonaa calaamada sendiga ayaan taaban doonaa. sendi waan diri doonaa insha allah billahi kareem. waxay idinkugu soo jawaabi doonaan 72 saacadood, waayo waqtigii hore 24 hours ay kusoo jawaabi doonaan 48 saacadood way ku gudbeen. hadda 72 saacadood ayay wax kusoo jawaabaan insha allah. 72 saac kadib akoonkaaga kusoo laabo, profilkaaga ku dhufo 3 dhibic tag, kadibna inta ayaa ka dul arki doontaa qaybtan hoose ayuu kugu soo qaban doonaa insha allah. marka maanta muuqaalkeen waxaa ugu talagalay inaan kula wadaago habka aad maaragtay professional mode-ka hadduu uusan akoonkaaga ka muuqdin oo akoonkaaga aad ugu soo muujin lahayd insha allah billahi kareem. waxaan ku leeyahay tan inta kulmi doono muuqaal caynkan oo kale ah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. see you another next video insha allah. intaanan muuqaalkan soo afmeerin waxaan ku leeyahay intaa dhalinyaro tahay waqti ay ka faa'iideyso. bye bye.